وسيلك كنتي حري وخصوصا قاسي عن حبورين أو وسيل لقي غاية الدولة أو كنتي عن غير أوجين أو خلق قاي خصوصا كذا ما دام وسيلك هو وسيلك تنوي سماعين تجنوي بحلوين أوي هو له وسعنا هاي هي ودرا إنه ذكرت الشرع وليس قالوا ذكرت الشرعية يسدها لما فينا أيو سا حي يوصل فيتي ساكن كشر معه حول هي وحستوى شيء حق ودرا إنه هي أخبارات ودرا سيقا كشعتي بعدين دقني وين هاي قوة سنين على ما حان كنت واحدة يخلي ما هي إنه ما سمعيه حلوانك وسيلك وح تشدك وسعلي على ودرا هاي لا دو حلي وكب حي سقل حنا يبي سقل حنا كب حي مجال سدح ذهب اللي مكبح تواكي حالة ترى سوق إيه وسير سوق عليه إيه وحنا سوق عليه سيجدون باركور هلا لا ونفس جحرس هي هذا سوق الميس أنا عارف إن هذا مدحون أنا صادر وسير قف شخصي وصادر مش اللي ليه وسير بقى مري يا أنا وسير بقى المري marka madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa wasiiro tayaale inuu meesha keeno bismillaahir rahmaanir rahiim ana ku hadlay afka dhilinta degmada Ciidafin waxaan ka hadlayaa saaka wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo saaka waxa la yimi degmada saakana uga baxay sidii wax CID oo kale oo qarsoonida uga baxay oo dhuntay saaka markii odayaashu dheenu tagana afka taagada iska baxay oo xalana yiri uqaashayaan loo sideen annaguna nahay degmadii koowaad oo dhigtay hantiga ugu weyn ee wadada dhigtay sababta ay nagu tooso dawladdu xoolaha ugu deeqdan waxaan xoolo ku neefabay ahayn waxyaabahaas aanu ka cabaatiga ka dhibanayna saaka anigoo ah dhalinta ku hadlay dhalinta degmada Ciidafin oo dhalinta raguna hadda doonaan intaas ka baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كوكب أبشر هافتة جيجلي. أنا جمهورية الصومال لا نشوف شيء إن عندنا هاي دميرة دميرة إن باخر له وكسائسا إن وسير كهؤلاء بدي يقولين تا كدب مركو وسير كدميرة عرف كسو جاري إن صدق دقنا ودتكي ولا كل من هاي كورة سن لها هؤلاء أبشر صعد كودرة دميرة عرف إن وكتشو شيء لما نتوب إن كهذا كان كهذا لهاي وده إن سيدا أوجد وحنا هناك عطسنا إن وسير كهؤلاء بدي يقولين oo markii hore uu rajiyay wadooyinka aad iyo aad wajigaba xogla kulantay degmada Ciidafin wasiirku wuxuu ahaa wasiir loo haweynaa hase yeeshee hankiisii degmada ugu haweeneyd uu ka baaqday sidaa awgeed waxaan madaxweynaha soo jeedinaynaa inuu sida ugu dhaqso badan loo gacan geliyo wasiirka Cali Mareyxan wadadii wadantaa marayaha wadada oo in aad iyo aad u faaniyo wadada waxaan u sheegaynaa wax qabadkiisa shaqo inuu yahay mid aad iyo aad dhaliilu dulsanayso